qof kasta oo madashan oo kala fadhiya waxa uu rogayaa shaarka cimaamada ama go'a uu gashan yahay kolka madashu gunaanaysa afgaradka ku idlaato. waa dhaqan fac weyn oo ay leeyihiin beelaha Soomaaliyeed ee Dagoodi iyo Garre oo wadadaga gobolka ay ka mid yihiin Daawo iyo Liibaan ee deegaanka Soomaalida. gudaha xafiiska nabadgelyada deegaanka hooska geedka hadhaca ah ee sita magaca geedka nabadda waxaa ku kulmaya dhinacyada abaabulaya dhabaha dib u heshiisiinta beelaha walaalaha oo diyaar daawadaagta dhaqan iyo dhalasho wadaagga isku sidkan ee Dagoodi iyo Garre oo muddo dheer ay dhexdooda xurgufi ka aloosnayd. waajid hor leh oo ay tilaabayaan beelahani dhexdoodana lagaga sifeynayo xurguftaas. madashan waxaa soo abaabulay hoggaanka amniga deegaanka Muwashir Dibad Raage. waa bilowga heshiisiintii ugu horreysay ee uu sameeyay hoggaanku taniyo intii uu xilka qabtay bartamihii bishii tagtay. hoggaaminta deegaanka ku metel labada beelood oo ay ugu cadcad yihiin injineer Maxamed Shaalle Isaaq madaxa xarunta dhexe xisbul xaakimka Barwaaqo, afayeen xigeenka baarlamaanka deegaanka iyo wasiirka ganacsiga deegaanka Malow Ibraahim ayaa madasha ka mid ahaa. hoggaan ku xigeenada xafiiska amniga deegaanka, madaxda labada gobol ee Daawo iyo Liibaan iyo golaha guurta deegaanka oo horkacaya Garaad Kulmiye Garaad Maxamed ayaa iyana kulanka goobjoog ah kana mid ahaa fududeeyaashii soo dhiraandhiriyay qabsoomida madashan. kulankani intii uu socday hoggaaminta iyo waxgaradku waxay si waafiye dhinacyo kala duwan uga eegeen xaaladaha xilligan ku xeeran shacabka deegaanka Soomaalida oo laga maarmaan ka dhigaya isku duubni, walaalnimo iyo midnimo qowmi ah in laga gudbo xaaladahan, iyagoo istusay waaya aragnimada iyo aqoonta xeel dheer ee shacabka deegaanka Soomaalida u leeyahay in isku wadida bulshada iyo isjaceylka walaalnimo uu yahay jidka ugu muhiimsan ee kaalmeyn kara tanaadka bulshada. hoggaanka nabadgelyada deegaanka ayaa labada dhinac ugu baaqay inay xoojiyaan nabad ku wada noolaanshaha iyo midnimada dhexdooda, iskana tuuraan turxaan kasta oo kala geyn karta ama isnacsiin karta. odayaasha iyo cuqaasha madashan oo ay ku jiraan odayaasha, aqoonyahanka iyo duqeyda labada beelood ayaa si midaysan u waafaqay in sida ugu dhaqsaha badan loo xoojiyo howlgalka heshiisiinta iyo soo celinta nabad ku wada noolaanshaha labada beelood. waxaana madashan lagu aasaasay guddiyo isku dhaf ah oo dhiraandhirinaya dhabaha u jeexaya, sidoo kalena gunaanadaya xalka heshiisiinta labada beelood ee Dagoodi iyo Garre. ugu dambayna gunaanadkii madashan waxaa lagu soo afmeeray in qof kasta oo madashan goobjooge ka ah uu dhinaca kale u rogo hoggiisa, waana astaan muujinaysa iswaafaqid iyo in marxaladii hore laga gudbo una dhiganta isdhaarsi iyo in heshiiskani dhacay lagana bixi karin. hoggaaminta deegaanka ayaana ugu hor bilaabay in ay rogaan hogowga. habdhaqankanina waxa uu gaar u yahay beelaha Soomaaliyeed ee Dagoodi iyo Garre.